waxaa saaka xafiiska ra'iisul wasaaraha nagu soo booqday wasiirka Afrika dowladda boqortooyada Ingiriiska Andrew Stevenson oo member of parliament ka ah Manchester waxayna ahayd booqashadiisii ugu horeysay uu ku yimaado waddan ka baxsan waddanka Ingiriiska sidii ay dowladda cusbeed ay Boris Johnson ra'iisul wasaaraha ka yahay taas waxay muujinaysaa muhiimadda ay dowladda Ingiriiska siinayso saaxiibtinimada ka dhaxaysa dowladda Ingiriiska boqortooyada Ingiriiska iyo Soomaaliya waxaan ka wada hadalnay xiriirka qotada dheer ee labada waddan ka dhaxeeyay waxaan ka wada hadalnay arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha horumarka ay Soomaaliya sameysay ilaa iyo tan iyo waagii dowladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ay hogaamiyaan horumarka ay ka sameysay dhinacyadaas waxaan ka wada hadalnay ujeedada fog iyo muhiimadda fog ay Soomaaliya ay ka rabto inay ka gaarto dowlad wanaagga horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada waxaan ka codsanay dowladda Ingiriiska oo weligeed taageero buuxda u bixin jirtay waddankan Soomaaliya taariikh fog iyo saaxiibtinimo fogna leh inay caawinaadaas ay u noqoto hormuud inay Soomaaliya hormuud u noqoto ay noqoto codka Soomaaliya markay timaado adduunyada iyo fagaarayaasha ay dowladaha adduunka ku kulmaan ra'iisul wasaaraha wuxuu ugu celceliyay una fasiray horumarka uu galmudug ka soo hooyay 6 isbuuc oo meesha ku maqnaa iyo dib u habeynta siyaasadda iyo kobcinta arrimaha maxaa la dhihi jiray dowlad wanaagga uu ku leeyahay marka ayagana waxay noo sheegeen inay 100% taageerayaan horumarkaas ayna gacan ka siin doonaan inay Soomaaliya horumar buuxda gaarto inta ka harsan mandate-ka dowladdan iyo wixii ka dambeeyaba marka wuxuu ahaa kulan aad u fiican waa soo dhaweynaynaa inaan nahay waddanka ugu horeeyay uu wasiirka Afrika uu ku yimaado waxayna tusinaysaa saaxiibtinimada fog aan wada leenahay